وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو قولوا عن عدوك واقو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوارو وادنكين قولوا عن عدوك واقو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وداقو اكوارو وادنكين saamaynta ay waxbarashadu ku leedahay xirfadaha iyo hawlaha shaqo waa mid aan qarsoonayn oo laga dheehan karo goob kasto ay ka jiraan adeegyada bulshada. furfurista masalooyin ku xeeran horumarka bulshada waa mid salka ku haya aqoonta laga kororsado dugsiyada waxbarasho ee ka jira deegaanka. haddaba barnaamijkan waxaan u diiradda ku saari doonaa xogta taariikhda iskuulka sare ee Bursada Secondary School ee ku yaala gudaha magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. تعليمك تسقطيو تبتينو لشي ودا magacay waa Taysiin Maxamed Jaamac oo baraka tirsan barayaasha dugsiga sare ee Bursada waxaan dhigaa sabtiga la maths ama xisaab waxaan dhigay macallimada ama ku jiray waqtigan macallimada ku jiray wax weeye waa from 2012 up to now waa oo noqonaysa 8 sanadood ayaan macallin ahaa dugsiga sare waxaan dhigayay 7 sano ka mid ah iskuulkan waxaan sanadkii koowaad ayaan joogaa haddana ka waramo tayada iskuulkan waa iskuulkii ugu horeeyay dugsiga sare ee laga dhiso gobolka Saaxil ama degmada Berbera. dugsiga sare ee Bursada waxa la dhisay 1981 waxaana xilligaasi hirgeliyay dugsiga Allah u naxariistay Cabdi Jaamac Faarax Bursada oo ahaa maayirkii magaalada Berbera xilliyadii 1980 ilaa 1988. dugsigan sare ee Bursada sida magaciisuba uu sito aad ka arkaysaan Bursada wuxuu ahaa maayirkii soo maray degmada Berbera xilligii ay xukumaysay dawladdii kacaanka ahayd marka Bursada oo magaciisu ahaa Cabdi Jaamac Faarax oo kuna magac dheeraa Bursada waxa uu magaalada maayirka ahaa 1984 ilaa 1988 marka magaca Bursada dugsigu halkaas uu ka wataa 2000 ayaa dib loo dhisay dugsiga kadib markii ay saameyn ku yeesheen dagaaladii dib u xoreynta u dhaxeeyay taliskii Siyaad Barre iyo mujaahidiintii sana. arday badan ayaa subax kasta ka xaadira fasalada waxaana markaad booqato goobaha waxbarasho ku muuqanaya jawi qurux badan iyo dareen farxadeed. waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa iskuulkan Bursada qaybtin hadda aynu joogno iyadoo waxa la dhisay 2000 baa la dhisay oo dub loo repairing gareeyay in Bursada magacii Bursada la soo celiyo sida oo kale iskuulkan Bursada waxa uu ka kooban yahay laba qaybood part 1 iyo part 2 part 1 oo ah qaybtin minka aynu joogno oo intii Soomaaliland ah markaasi aasaaskii ugu horeeyay dugsiga sare qaybta kalena waxa weeye waa part 2ga waxa weeyaan qaybtii uu hore u dhisay Bursada ama maayarkii Bursada loo oran jiray oo ah secondary ugu horeeyay ay yeelatay magaalada Berbera. Hata waxaan ku suganahay dugsiga sare ee Bursada Secondary School ee ku yaala gudaha magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil. Ardaydu haatan waxa ay ku jiraan safka taasi oo lagu dhiirigelinayo tarka ay leedahay iyo muhiimadda ay leedahay waxbarashadu.
maalin kasta oo sabti ardaydu waxay sameeyaan bandhigyo waxbarasho waxaanay ardayda hortooda ku soo jeediyaan mabduucyo ay soo diyaariyeen bandhigyada ardayda ayaa qayb ka fahanka waxbarasho ee ardayga hal ilaahay ayaa jira cirka ka hadoodilay arre edegna waa hee halkii aan ku ababiyo ciidaydii hooyo waa lama huraan annagu imika 2 sanadood barnaamijkaasi waxaan wadnay daabuurka barnaamij la yiraahdo oo kiisaaka aan nagala qayb qaadateena oo aan toddobaadba siino hal fasal oo kamida iskuulka saako kale ardaydii fasalkaasi ka socotay saaka oo 2A ahaa waxa ay ku soo kordhinayaan iskuulka in biliciisa wax ka qabtaan iyagoo markaas maal gelinaya boardka halka kadinka hore oo imika aan gacanta ku hayno marka xagga marka loo eegayo wax gashiga iyo contributionka ardayduna waxaan ku dhiirigelinaa markaasi inay nagala qayb qaataan walow ay dadku leeyihiin iskuulka waxaan markaasi dadka ardayda intooda badan wacyigelin ku siinaa in ay iyagu iskuulka leeyihiin aan cid kale lahayn marka sababtaas waxay keentay in ardayda ka qayb qaataan horumarinta bilicda iskuulka waa jawi rooban oo qurux badan ardaydu haatan waxay kala galayaan fasalada kuwaasi oo qaadan doona casharadii loogu talagalay qorsheynta iyo tayeynta waxbarashadu waa mid ardayda ku dhiirinaysa inay si habsami leh u bartaan duruusta kala duwan ee ka socota dugsiga macallin Yuusuf Cabdiqaadir waa kormeeraha xiisadaha waxbarasho ee dugsiga sidoo kale maalin walba wuxuu la socdaa joogtada ardayda timi ardayda waa anaga imika wada galaas 2A waa tandiniskoodii waan xaadirinayaa galaaska maanta shilay ku maqnaa kuwii khamiistii maqnaa waa la soo saaraya waxa la weydiinayaa sababta aad ku maqnaydeen haddii ardaygu 3 shay dhaafana ganaax buu leeyahay culus maalintaana form masterkiisa ay ganaaxaya systemka aan daba galnaa systemka xaga ma kala eega aqoontooda ka baca horta imika teknoolojiyad baa jirto wixii waa casri ka faa'iideysi xaga aan ka faa'iideystaan kobaca suulkuna waa saakin oo arkaysan imika waxa laga yaabaa barnaamijyada ardaydu sii deynaa runtii ardaydu sanadadii hore iyo sanadadan dambe markii la badiyay barnaamijyadii waxaad moodaa ardaydu inay soo dhiiranayaan saaka la socoteen barnaamijkii meesha naga socday waxa laga yaabaa imika badan waxaan sameynaa xisid ardayga ma dhignay xisidna iyagan siinaa waxaanu dhignay 3 wiiga dambe bal wiigan ka fargareeya oo haddaan 2 chapter soo chapter down dhameeno waxaan chapterka soo dhigateen bal idinku isku daya anagoo kala saarnaa by groups waxna group kasta bal soo jeedinaysan kadib ardayga waxaan noqonaysaa moral in ardaygii bal wax soo jeedin karo waa adiga maanta arkay in ardaygu uu soo dhiiranayo soo istaaga masraxi in ardayda macallimiinta soo istaago in ardaygu barnaamijkii loo diray uu soo diyaarinayo haddaan markaa isdul taagno xilligan tayada waxbarashada iyo halka uu kaga jiro dugsiyada kale ee gobolka tayadiisa waxbarashada runtii aad bay u wanaagsan tahay waayo waad arkaysaan ardayda iyo waalidka iyo degmada iyo gobolkuba siday ugu qanacsan yihiin waxbarashada ka socota dugsigan sare ee Bursade subaxii waxbarashadu way socotaa gelinka dambe 4 galabnimo laga bilaabo ilaa 6 way socotaa habeenkiina maqribka ilaa cishaayiga inta u dhaxaysa 6 ilaa 8 habeenimo waxbarashadu way socotaa saddexdaa jeerba iskuulka waxba lagu dhigtaa marka waxaan oran karnaa iskuulku waxa uu xidhan yahay kaliya inta yar la hurdo kaliya ama habeenkii ha noqoto ama duhurkii ha noqotee xilliyadaas uu iskuulku xidhan yahay wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno weeyaan mayno wahsanayno waaban mayno warwareegi mayno weeyaan mayno xilliyada kale oo dhan ama subaxii ama galabtii ama habeenkii waxbarashadu way socotaa sanadkii dhaweyto imtixaanaadkii shahaadiga ee la galay ayaa kaaga marxaatiya ardaydii imtixaanka u fadhiisatay waxa ay 250 arday oo wiilashu ay haayeen 137 arday inta kalena ay hablahaayeen scholarshipkii loo qaybiyay wadankeena gobolka waxa uu ka helay 20 xubnood oo ardayda Itoobiya loo qaadayay dugsiga sare ee Bursade waxa uu ka helay 10 arday oo kamid ah 10kii arday kalena waxa qaybsaday gobolka intiisa kale marka laga reebo soo iyadu gooni ahayd oo wasaaraddu ay gooni had iyo jeer u saaraan marka tayada waxbarashadu halkaas ay taagan tahay sanadkanna waxbarashadu inay halkii ka sii wanaagsanaato waanu wadnaa way dadaalka sida dadinku baad arki doontaan galabtii iyo habeenkii waxbarashadu way socotaa waxaan ku dadaalnaa had iyo jeer maadaama uu xagaagu waqti ay naga tagaan oo halka iskuulada kale la furo bishii 8aad aanu anagu bilowno bisha 9aad waliba 15keeda inta anaga tagtay waxaanu ku dadaalnaa si aanu soo kafar garayn lahayn
markaa gelinka dambe oo kale waa sababtaan ardayda u soo celinayno habeenkii oo kale waa sababtaan ardayda u soo celinayno waxaan had iyo jeer ku talagalnaa inaanu manhajka qaranka ee loogu talagalay ardayda ha noqdaan fasalka koowaad ilaa fasalka afraad inaanu sidooda u dhammaystirno oo casharada ardayda aanay waxba ka hadhin. waa hagaag daawadayaal sidooda arkaysaan haatan waxaynu ku jirnaa qaybta shaybaadhka ay ardaydu ku tijaabiyaan casharada sayniska. marka dib u milicsato sooyaalka taariikheed ee iskuulka waxaa jiro maamulo isaga kala dambeeyay dugsiga Bursade iyagoo maamul kasta qayb ka soo qaatay kobcinta iyo horumarka waxbarashada dugsiga. ardaydii ugu horeysayna waxay bilowday 1981kii xilligaa waxaa maamulo ka noqday Cabdilaahi Diiriye Cawaale oo imikana nool laakiin xanuunsanaya oo xaafadiisa jiifa. ilaahay waxaan u weydiinaynaa caafimaad Cabdilaahi Diiriye oo ku magac dheer Hawd. Cabdilaahi Diiriye waxa uu iskuulkan hayay ilaa 1986kii 1986kii waxa la keenay Saleebaan Cabdi Cali maamulihii labaad ee ku xigay oo isaguna hayay ilaa 1988kii intii ay ka dhacayeen dagaaladii ka dhacay gobolada waqooyi ay hogaaminaysay ururkii SNM. ilaa xilligii wixii ka dambeeyayna dugsigii waxa soo gaaray burbur xilligii ay dagaalada aynu ku jirnay. burburkii ka bacdi markaynu ka soo noqonnay 1991kii dabcan dugsiga sare xilligaa bilaabmayay muu jirine ardaydu waxay ka bilaabeen dugsiyada hoose kadibna ilaa 91kii ilaa 2000kii ardaydu waxay ka soo baxayeen dugsiyada hoose dhexe fasalada 8aad. lodkii ugu horeeyay markaa dugsigii waxa dib loo asaasay Bursada dib loo kiciyay 2000 ayaa dib loo kiciyay oo lodkii ugu horeeyay 2000 ilaa 2001 ayay galeen oo foonka bilaabeen. xilligaa waxa maamulo ka noqday Cismaan Axmed Kaahin oo ah maamulihii Allah u naxariistay imka inaga hooseeya allana aan dambi dhaaf u weydiinayno in badanna gacanta ku soo hayay iskuulkan oo magac weyn kula degmada Berbera iyo gobolkaba. dhalinyaradii maanta ugu xoog badan ee maanta ka shaqeysa holdoorka oo ah wadankeena isaga ayaa xilligaa gacanta ku hayay oo soo saaray fasalkii koowaad ilaa fasalkii afraad. waxa kamid ah agaasimahan guud ee wasaaradda waxbarashada Mudane Axmed Abukar, waxa kamid ah xogayaha gudoomiyaha ururka Soonyo Cabdicasiis. ragga iyo dhalinyaro badan oo kamid ah haldoor oo maanta ka shaqeeyay wadankeena xilligaa Cismaan baa gacanta ku hayay Allah u naxariisto. maamulihii ku xigay Cismaan Axmed Kaahin wuxuu noqday Axmed Cabdilaahi Cawaale oo isaguna hayay 2008 ilaa 2019kii. waxa ku sii xigay maamule la yiraahdo Jaamac Maxamed Cali. waxa ku sii xigay Cabdixakiin Xasan Maxamed. aniguna waxaanu yimi 2011 dabayaaqadiisii. warbixinta taxanaha buu leeyahay iskuulku intaas soo maamulaana iska soo bedelay. dhalinyarada wax ka bartay dugsiga sare ee Bursada waa kuwa kaalin muhiim ah kaga jira waxqabadka firfircoon ee adeegyada bulshada. Nuux Ismaaciil waa mid ka mid ah aqoon-yahanka gobolka Saaxil wuxuuna ka howlgalaa wakaalada biyaha ee magaalada Berbera. magacaygu waa Nuux Ismaaciil Maxamed Cabdilaahi degan magaalada Berbera ku dhashay waxbarashadiisii hoose dhexe sare ilaa heer jaamacadeed ku dhamaystay. imkana ka mid ah dhalinyarada ka shaqeysa wakaalada biyaha Berbera. jaamacadaydii waxaan galay waqtigu markuu ahaa 2011 ilaa 2014 waxaan ka mid ahaa dhalinyaradii dhamaysay kana mid ahayd ardaydii ka qalin jebisay digriga qaybta loo yaqaano economics ayaan ahaa oo qaybtii saddexaad baan ahaa ee jaamacadda Golis farceeda Berbera ka qalin jebisay. waxaan ka mid ahaa ardaydii ka baxday sanadkii 2010 iyo 2011 dugsiga sare ee Bursada Secondary School Berbera. wallahi alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay ayaa mahad iska leh. qofku kale marka aqoon barto iyo markaanu aqoonta lahayn marka hore ilaahay baa inoo kala sheegay oo isku mid maaha. aqoontii maanta aan Bursada ka soo baranay iyo gobolka Saaxil guud ahaanba alxamdulillah waanaga ku shaqeynaa imika. kulwan adowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago akwaaro wadankeena. dugsigan Bursade waxaa ka baxay 17 lod baa ka baxay intii uu imika dhisnaa Somaliland. 17 kaalmood ee ka baxay waxa ay kaalmo muhiim ah kaga jiraan arrimaha bulshada iyo jamhuuriyadda Somaliland. iyadoo aynu soo qaadan karno agaasimaha waxbarashada iyo tacliinta sare iyo sayniska Mudane Axmed Abukar Maxamed
oo ah markaasi ladkii ugu horreeyay iskuulkan ka baxa sidoo kale waxaan u soo qaadan karnaa tusaale kale gudoomiyaha Soonyo ama dalada dhalinyarada ee Soonyo Cabdicasiis oo isaguna iskuulkan ka baxay Cabdicasiis Saciid Saalax oo isaguna ah ardaydii labaad ee iskuulkan ka baxda sidoo kale waxay kaalmo muhiim ah kaga jiraan marka aynu eegno gobolka iyo degmadaba imika dhalinyarada ugu badan ee kaalmaha muhiimka ah kaga jirta dawladda hoose dekada waxa ay ka soo baxeen ama ay ka aflixeen dugsigan sare ee Bursade iyadoo tusaale soo qaadan karno inamada ugu firfircoon degmada ama dawladda hoose Berbera waxa weeyaan Jimcaale Cawke iyo Xasan Cabdi Cali Xasan Fiisigis oo ah iyagu labadooduba ah agaasimeyaasha waaxaha kala duwan ee markaasi dawladda hoose sidoo kale kaalmaha kale muhiimka ah waxa kaga sii jiraan markaan roolka dawladda sare ka eegno Cabdinaasir Umar oo ah markaasi wasiir ku-xigeenka ahaan jiray wasiir ku-xigeenka warfaafinta hadda wasiir ku-xigeenka caafimaadka haddana ah wasiir ku-xigeenka warfaafinta oo isaguna ah markaasi ardaydii afraad ee iskuulkan ka baxda markaasi ama ladkii afraad ee iskuulka ka baxa dawladda hoose ee magaalada Berbera ayaa qayb muuqata ka qaata horumarinta waxbarashada dugsiga sare ee Bursade waxa kale oo aan halkan ka sheegaynaa in xiriirka naga dhaxeeya mas'uuliyiinta waxbarashada ee gobolka kuwa degmada mas'uuliyiinta kale ee gobolka iyo degmada sida maayarka iyo barsaabka kale iyaguna inay nala garab taagan yihiin had iyo jeer inay ka warhayaan dugsiyadii gaar ahaan dugsigeen sida dugsiyada kaleba taasina ay noo saamaxday had iyo jeer inay waxyaabo badan ay noo qabsoomaan ay noo hirgalaan waayo waxa weeyaan imka degmada Berbera dawladda hoose macallimiinta gurnaysiisa oo waxa weeyaan gurnada macallimiinta waa ay ka helaan leerkan aad arkaysaan waxa bixiya joogto bixiya dawladda hoose biyaha oo kale kharashkooda waxa bixisa dawladda hoose wixii kale dheeraad ee looga baahdana had iyo jeer waa la heegan oo annagu wixii aan ula tagnabo isma hortaagaan sideeda ayay noogu fuliyaan wixii de markaa caqli gal ay ka qabanayaan taasina waa tan noo saamaxday had iyo jeer isku duubnaantaas inaan wax badan gaadhno insha Allah mustaqbalkana waxaan rajaynaynaa inaan halkaa ka sii wadno oo aanay hoos nooga dhicin fahanka wadaniyada iyo qiimaha nabadda waxay muhiim u tahay nolosha bulshada in ardayga lagu baraarujiyo toosnaan iyo wadan jacaylkuna waxay qayb ka tahay waxbarashada taliyaha howlgelinta ciidanka booliska ee gobolka Saaxil gaashaanle Amiin Maxamed Cabdi oo booqasho ku yimid dugsiga Bursade Secondary School ayaa ardayda ka wacdinayay in ay ka fogaadaan balwadaha xunxun sidoo kalena ardaydu ay ku dhiiradaan in ay sameeyaan dadaal waxbarasho isla markaana higsadaan horumar nololeed waxaan soo booqday galaaskan oo mas'uul noo ahay waalidna aan u ahay waxaan ku dhiirigelinayay waxbarashadooda iyo wanaagga iyo farxadooda inaan systemkii loo wada shaqayn lahaa ee ugu wanaagsan iyaguna wax u baran lahaayeen anagu boolis ahaan kama maarano dadweynahaanu saaxiib la nahay waxaanu ka wacyigelinay muqadaraadka iyo waxa xun ee nagu soo kordhay say isaga ilaalin lahaayeen boqolkiiba boqol waxaan ku rajo weynahay wixii aanu isniri inay qaadanayaan dad wanaagsan galaaskii foonfoorada kuwa hoosena waan soo marnay boqolkiiba boqol mar kasta waxaan ku dadaalnaa boolis ahaan sidii bulshada aanu gacanta isu qabsan lahayn bismillaah awalan magacaygu waa Najmo Maxamed Cabdi ka socota galaaska 3B waxbarashada waxay noogu socotaa si wacan oo noo bilaamatay dhammaan xiisadaha daraasadaha waan wada qaadanaa ما شاء الله معلمين تيار ديدنا وضع ديارتي وعنا وحبرشة ونوجو ساعتها معلمتي وحنا قاعدين عشان حصادات كودهانا وحنا رجعنا طبعا حصادات كل وحياة فربنا بان رتشيني لكن أنا ولي كلا دورانين سيبا أنا وحنشعلي لكن أنا برتان وقعف كلي ضعف ماتك ardayda haddaan ka hadlo kubacoodaad bisku bedelay waliba markaan ka hadlo xagga hablaha aqoonta bariga hore xagga hablaha waxa laga yaabaa afarta galaas ee secondary koobiya ama afarta galaas ama galaaska wanka haduu galaas yahay 7 haduu yahay 10 ba hablaan jiray halka imika yihiin 16 galaas Bursade 8 hablood galaas oo dhameystiran waa hablo 8 galaas oo dhameystiran oo maxay waynamo
markii hore marka haddii la isku wada geeyo hablaha bursada oo dhan waxay soo baxayaan hal galaas aqoontooda haddaan ka hadlo runtii aqoontooda aad baan uga shaqeynaa tareener badan oo macallimiinta la siiyaa awgeed tababaro badan oo la siiyaa awgeed macallimiin ardayda aad baa loo dabagalaa macallimiintana waa la dabagalaa maamulaha ayaa hadba joogteeya reer wiigna waxaa loo xisaabiyaa macallinka lesson balaankiisa waxaa la eegaa iskiima fogiisa wuxuu dhigay wuxuu ka fargareeyey waxa ka dhiman waxa ka maqan tirada macallimiinta ee hadda halkan ka hawlgal gashaa waxa weeyaan 27 macallin 26 waa rag hal macallimad oo dumar ah ku jirta tirada ardayda haddaynu isku taagno waxa weeyaan 908 arday oo hablo inamadu ay yihiin 530 arday inta kalena ay wiilaliyeen ay yihiin hablo waxaan rajaynaynaa waliba in magacan dugsiga sare ee Bursade halkan uu maanta taagan yahay inaan kor uga sii qaadno waayo waxa weeyaan halka ugu dhagaan iskuulku leeyahay waxa weeyaan step by step forward waxa weeyaan si talaabo ah waa in iskuulku hore ugu socdaa oo aanu dib ugu noqon sidoo kale dawladda hoose ee Berbera waxay gacanta ku haysaa adeegyada iyo tayeynta waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee magaalada Berbera maanta talaabada muuqateen halkan u fadhino kuway ka yihiin insha Allah waa ducaynayna ilaahay inuu barakeeyo ubadkooda iyo oriyahooda iyo arrimahooda dhan u barakeeyo idinkuna inaad la shaqaysaan oo gacanta qabataan baynu u baahanahay ilaahay ka dhigo dugsiyada hoose dhexe runtii dawladda hoose dee xoogay saaraysaa wasaaradda waxbarashada iyo siyaasadeeda ku shaqaynaysa marka waxaasoo dhan markaan isla kaashano waxaa inoo soo baxaya arday nadiifa arday mutacallina arday hadhow toole madaxda qaranka ee mustaqbalka noqdaba inoo soo baxaya waxbarashada haddaad imika tusaale ahaan u soo qaadatid waxbarashada dugsiyada hoose oo dhan dawladda hoose ayaa gacanta ku haysa oo sida dastuurka qaranku qeexayo waxa weeyaan dawladda hoose kaliya tay fulisay nidaamkaas una hoggaansan nidaamka waxbarashadu waa mishiinka dhaqaajiya hawlaha shaqo ee bulshada qof kasta wax bartaa waa mid door muhiim ah ka qaata horumarka guud ahaan daawadayaaliintaasi ayaan ugu soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah aanu diiradda ku saaraynay xogta taariikhda iskuulka sare ee Bursada Secondary School barnaamijku waxa uu si toos ah idinkaga imaanaya Xanaad Media waxaana idin soo jeedinaysay anigoo ah Najma Yuusuf Roble barnaamijkan dhigiisa mar kale intaan hawada ku kulmi doono waa anigoo ah Najma Yuusuf iyo dhammaan bahda Xanaad Media oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo